Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaashana qiimaha badan maalin wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha waxaynu soo qaadan doonaa falanqeynta kulamada ugu waaweyn caawa laga ciyaari doono koobka adduunka iyo sidoo kale taariikhda iyo rikoorada ugu waaweyn ee laga diiwaangeliyey koobka adduunka ilaa hadda socda. Sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa wararka xanta suuqa kala iibsiga. Hadday tahay markii kugu horeysay aadna soo booqatay subscribe noo saar, haddaad hore noola joogtana like iyo share noo dheh, waad mahadsan tahay. Waxaa wada ciyaari doono caawa saacadu markay tahay 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika, xulka lagu magacaabo Spain iyo Cabo Verde oo ah markoodii ugu horeeyay ay wada ciyaari doonaan koob adduun ama weligood ma aysan ciyaarin kulan saaxiibtinimo xitaa ama kulan tartan. Waana markoodii ugu horeeyay ay labadan xul ay wada kulmayaan. Waxaa wada kulmaya xul kaalinta labaad qiimeynta FIFA kaga jira iyo sidoo kale xul markiisii ugu horeysay kasoo qayb galay koobka adduunka. Dabcan Spain waxay ku jirtaa kaalinta labaad qiimeynta FIFA ama xulka labaad ee ugu awooda badan adduunka. Xulka lagu magacaabo Cabo Verde waa markiisii ugu horeysay uu kasoo qayb galo koobka adduunka. Waxyaabaha uu xisaab badan waxaa ka mid ah Cabo Verde inkastoo ay tahay markoodii ugu horeysay ay kasoo qayb galeen koobka adduunka, waxay sidoo kale 2 jeer ay gaareen 8-dhamaadka tartanka AFCON ee tan iyo 2013. Sidoo kale kulankan waxyaabaha laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah Spain waxaa usoo laabtay ciyaartooydeeda Lamine Yamal iyo Nico Williams oo caawa ay wada ciyaari doonaan kulankan ama ay xaadir yihiin sida uu xaqiijiyey tababaraha xulka Spain Luis de la Fuente. Sidoo kale tababaraha Spain Luis de la Fuente ayaa sheegay in Yamal laga yaabo inuu ciyaaro daqiiqadaha u yar maadaama uusan ciyaarin tan iyo bishii Abriil. Sidoo kale Spain caawa waxaa ka maqnaan doono hal xidig oo kaliya, waana xidiga u ciyaara Barcelona ee lagu magacaabo Ferran Lopez oo dhaawac cagta kaga maqan. Xidigaha ugu muhiimsan ee caawa Spain waxaa ka mid ah Rodri, Pedri, Gavi, Michael Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo iyo Lamine Yamal oo ah xidigaha ugu waaweyn ee caawa Spain u ciyaari kara. Kooxda Cabo Verde dhammaan ciyaartooydeeda waxay ka ciyaaraan dalka dibadiisa, 23 ka mid ah waxay ka ciyaaraan Yurub, waana sababta sanadkan ay tahay markoodii ugu horeysay ay kasoo qayb galayaan koobka adduunka. 2 ciyaaryahan oo ka mid ah waxay ka ciyaaraan horyaalka Mareykanka, hal ciyaaryahanna wuxuu ka ciyaaraa horyaalka Imaaraadka Carabta. Guud ahaan 26 kaasi kuma jiro hal ciyaaryahan oo ka ciyaara gudaha dalka Cabo Verde. Sidoo kale tababaraha Cabo Verde wuxuu sheegay in dhammaan ciyaartooydiisa ay diyaar yihiin ayna u dagaalami doonaan sida ay Spain dhibcaha uga dhigi lahaayeen. Kabtanka kooxda Cabo Verde waa Ryan Mendes, waana gool-dhaliyaha ugu badan taariikhda Cabo Verde, waana ciyaaryahanka ugu safashada badan taariikhda dalka. Kulankan wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay Spain iyo Cabo Verde ay wada ciyaari doonaan taariikhda kubadda cagta. Xaqiiqooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah Spain waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee FIFA, Cabo Verdena waa dalkii saddexaad ee ugu yaraa abid kasoo qayb gala koobka adduunka. Lamine Yamal ayaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto. Sidoo kale Ryan Mendes waa halyeyga ugu weyn ee Cabo Verde, waa ninka ugu safashada badan taariikhda xulka Cabo Verde, waana ninka ugu gool dhaliyaha badan taariikhda xulka Cabo Verde. Haddaan intaas kaga gudubno Spain adiguna saadaasheeda ka dhiibo, waxaan u gudbaynaa markaana Belgiumka iyo sidoo kale Masar ayaa wada ciyaari doono. Dhammaan taariikhda kulamada ay wada ciyaareen kaliya waa 4 kulan, dhammaantoodna waa kulan saaxiibtinimo. Wax tartan oo ay wada ciyaareen kuma jiro. Dhammaan 4 kulan ee Belgiumka iyo Masar ay wada ciyaareen waa 4 kulan oo saaxiibtinimo kaliya. Guulaha ugu badan waxaa qaadatay Masar 3 kulan oo ka mid ah ay guuleysatay, halka Belgiumka ay guuleysatay 1 kulan oo kaliya. Wax barbara maysan dhicin. Taariikhda kulamada haddaan fiirino 18 November sanadkii 2022 Masar waxay 2-1 kaga badisay Belgiumka, kulan saaxiibtinimo ahayd. 6 Juun 2018 Belgiumka waxay 3-0 ku garaaceen Masar, kulan saaxiibtinimo, waana marka kaliya ay Belgiumka ay ka badiyeen xulka Masar. 9 February 2005 Masar waxay 4-0 ku garaacday Belgiumka, kulan saaxiibtinimo ah. Mar kalena 7 Maarso 1999 waana kulankoodii ugu horeeyay ay wada ciyaareen Masar iyo sidoo kale Belgiumka. Masar ayaa 1-0 ku garaacday Belgiumka. Kulankii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 18 November haddaan soo qaadano 2022. Goolasha Masar waxaa uu dhaliyay Mohamed Salah iyo Mahmoud Hassan. Goolka kaliya ay Belgiumka dhalisayna waxaa dhaliyay Louis Openda. Saadaasha kulankan ayaa ah in Belgiumka ay adkaan karto maadaama ay tahay kooxda ugu awooda badan ee loo arko gruubkan ku jirta.
xogaha kale ee laga qoraya Belgiumka iyo Masar waxaa ka mid ah Belgiumka waxay lumisay hal kulan oo kaliya 15 kulan ee ugu dambeysay ee heerka guruubyada koobka adduunka. Belgiumku kama aysan badin 13 kulan ka hor furitaanka koobka adduunka. Xidigaha ugu waaweyn Belgiumka waxaa ka mid ah Kevin De Bruyne iyo Romelu Lukaku oo laga yaabo inay caawa wacdaro sameeyaan. Rikoorada kale ee laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah Belgiumka waxay gaareen kaalinta saddexaad ee koobka adduunka 2018. Masarna weligeed ma aysan badin kulan koob adduun ka tirsan taariikhdeeda. Waana waxyaabaha ugu waaweyn ee wargeysyada Yurub ay ka qorayaan kulanka caawa ee u dhexeeya Belgiumka iyo sidoo kale Masar oo soo gali doona saacadda Geeska Afrika markay tahay 10 fiidnimo. Adiguna aragtidaada ka dhiibo. Haddaan ugu gudubno kulanka saddexaad ee caawa la ciyaari doono wuxuu u dhexeeyaa Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale xulka qaranka Uruguay. Waana qaaradaha Aasiya iyo sidoo kale Ameerika ayaa iswajahi doona, ama dhulkii barakada badnaa ee Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale waxaa iswajahi doona xulka Uruguay. Tirada guud ahaan kulamada ay ciyaareen waa 2 kulan. Sacuudi Carabiya wax guul ah maysan gaarin, hal barbaro ayaa la galay, hal guulna waxaa gaartay xulka qaranka Uruguay. Tirada kulamada ay wada ciyaareen xulka lagu magacaabo Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale xulkan lagu magacaabo qaaradda Ameerika ee Uruguay waa kaliya 2 kulan. Sacuudi Carabiya wax guul ah maysan gaarin, barbaro hal ayaa la galay, Uruguayna hal guul ayaa la gaartay. Rikoorada ugu xisaab badan waxaa waaye guushii ugu dambeysay Uruguay ay ka gaartay Sacuudi Carabiya waxay ahayd kulankii koobka adduunka 2018. Sacuudi Carabiya weligeed kama aysan ka badin Uruguay kulan rasmi ah. Kulanka maantana haddii Sacuudi Carabiya ay guulaysato waxay noqon doontaa guushoodii ugu horeysay abid ay ka gaaraan Uruguay. Saaxiibayaal, kulankaasna fikradiina ka dhiibta. Haddaan ugu gudubno wararka kale ee suuqa kala iibsiga ama xanta, kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool waxay isku hayaan da'yarkan lagu magacaabo Ayoub ee ka ciyaara khadka dhexe ee xulka qaranka Morocco. Kooxda Arsenal ayaa bilaabay wadahadalo ay ku doonayaan khadka dhexe ee Ayoub oo ah 18 jir kana tirsan kooxda Lille una ciyaara xulka qaranka ee lagu magacaabo Morocco, kaasoo wacdaro ka dhigay koobkii adduunka ee markii ay xulkiisa Morocco ay bareejo ama hal ay la galeen xulka qaranka Brazil. Qiimahan lagu heli karo waxaa lagu qiyaasaa 60 milyan, waxaana wararka sheegayaan in kooxda ugu dhow kaliya ay tahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Arsenal, maadaama ay wadahadalo ay la sameeyeen ka hor inta uusan bilaaban koobka adduunka. Sidoo kale Bayern Munich waxay doonaysaa weeraryahanka Morocco ee Ismail Sabiri oo ka tirsan PSV Eindhoven ee wadanka Netherlands. Goolkii uu ku dhaliyay Brazil koobka adduunka ayaa kor u qaadi karta qiimihiisa, taasoo adkeyn karta heshiiska. Sidoo kale Bayern waxay rabtaa heshiis walba oo ay ku gaari karto ninka lagu magacaabo Ismail Sabiri. AS Roma waxay doonaysaa inay dalab 35 milyan ah oo loogu talagalay weeraryahanka lagu magacaabo Moses Greenwood ee u ciyaara dhanka iyo Ligue 1 ka ciyaara una ciyaara kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Olympique Marseille. Anderson wuxuu ku sii dhawaanayaa inuu Manchester United ku biiro. Saacadihii u dambeeyayna waxaa la xaqiijiyay inuu tijaabada caafimaadka u marayay dhanka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester United, Almiron iyo AC Milan. Manchester United ayaa bishii Janaayo shaqada ka ceyrisay tababare Ruben Almiron. Haddii uu Almiron uu qabto shaqada AC Milan, United-ku waxaa ka fududaan doonta ayaa la leeyahay dhanka iyo lacagta magdhowga 15 milyan ahaa.